waxaa jirtay gabar nala sheergaraysay qaabkii ay u soo kortay waxaa yaab igu dilay gabadha iyada barnaamijkaas ee ka soo qayb gashay wuxuu ahaa haday waalidiinta kala tagaan maxay ilmaha dhibay kala kulmi karaan markii qisadeeda ka sheekeynaysay idiimaysa calaacalaynin dhibkeedana maysa sheeganaynin waxay isdhahaysay communitygaada dhiirigelin ha u noqdo laakiin waxay ilowday communityga Soomaaliga inay yihiin wada neersistic la sheego hooyadiis iyo aabihiisba waa Soomaali gabadhi waxaa la isku day in gaslighting lagu sameeyo arrintii ay ka hadashay in ayada dambi looga dhigo inay ooyso inay guri isku xirto inay calaacasho in lagu aflagaadeeyo heer la gaaro la dhaho hadday guur weysay hadda bay guur weysay waa meesha loo hambaliyeen lahaa waxay sheegtay waa meesha la dhihi lahaa hadday jirto qisada aad nooga sheekaysa hadday jirto waxaad tahay gabar aan gabdhaha la mid ahayn waxaad tahay geesiyad u baahan inay gabdhaha ayada ka dambeeyo ay ku daydaan gabdha hooyo iyo aaba koriyay maal iyo lacag ka bixiyay xoolo iyo hanti ka bixiyay dahab iyo diamond u xiray maanta waxaa jira TikTok candadooda ku wareejinayo fiyo ku raadinayo aan waalidkood ka xishoon waay ba ana ahayn ta ana ahayn waa meesha la dhihi lahaa hablaha ha ku daydaan gabadhaan maxaa la isku day in la dhaho hadday guur weysay midda kale maxaa gabadha Soomaalidu aqligeeda iyo maskaxdeeda iimaankeeda ugu qufishaan nolosheeda dhanba inay guur tahay hadday guursan weyso maxaa dhacaya horaa waxaa u tireen ama god ha kaaga jirto ama guri ha kaaga jirto horaa gabdho loo soo guursaday maalin walba TikTok ilmahooda iyada TikTok dhex ordayo calaacalayo oynayo ilmahooda u raadinayo waxay cuni lahaayeen halka dad uga tugsanayo meeda wixii dhalay hadduu aabay xumaado meeda eedadi meeda ayaydi meeda adeerki meeda awowgi aabay dadkii aabay qabiilka ilmaha dhalay guurka Soomaalidu ay wax weyn gabdhaha ooga dhigaan soo tan ma aha gabdhaha 24 second dayacano oynayo calaacalayo stresska ku wada dhacay ee gabadhi aad 20 sano jir ku ogeyd stress dartiis overweight inta u noqotay aad u maleynaysid habar 9 jir ah rag aaleeday hal guursado majority waa rag dumarka da'doodii 3 u qaybiyay naagtaas waa naag landeera ah ninkii helaana nasiib leh abay waxaan ku leeyahay kib gooyn qof bili aadan ah hal eray uu dhahay yuusan ku dhaabicin mar walba hadafkaaga hamigaaga iyo shakhsiyadaada yaa la bedelin qofka tahay baa tahay kii noloshaada ku soo biirana mar walba waa inuu og yahay inuu u soo galay libaaxad ee dumarka kale wax dheer peace and love